يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة بلال بن رباح الحبشي wuxuu dhashay 3 sano kadib sanadkii maroodiga ee ku asteysnaa duulaankii xabashidu ku soo qaadeen kacbada. wuxuu ka mid ahaa raggii ku soo hormaray islaamnimada, waxaana la wariyaa in maalin maalmaha ka mid ah maalmihii rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo abuubakar ku dhuumanayeen godkii duleedka maka ku yaalay in bilaal oo ari jir ah soo maray goobtaas. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa weydiiyey inuu caanaha ariga u liso, hase ahaatee bilaal wuxuu ku yidhi mid ka mid ah caanaheed oo aan ku noolahay ayaana aniga sadkayga ah, haddii aad rabtaan waan idin iithaarayaa. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa riidii bilaal ka lisay caano badan oo ay saddexdoodu ka dhargeen, arrintaas oo ka yaawisay bilaal bin rabaax. markii dambena wuxuu nebiga u bandhigay inuu diinta islaamka qaato, sidaasi ayuuna bilaal ku islaamay. wuxuu nebiga sallallahu calayhi wasallam kula taliyey bilaal inuu islaamnimadiisa qarsado, laakiin goor dambe ayaa la ogaaday dadkii uu shaqaynayay ee addoonsanayay ayaana tacdiib daran u geystay. marka laga hadlayo makaanada iyo fadliga uu bilaal ku dhexlahaa islaamka, waxaa ka mid ah inuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu maalin maalmaha ka mid ah weydiiyey bal inuu sheego camalka ugu rajada badan yahay uu qabtay, maadaama uu shanqarta bilaal ka maqlay rasuulka jannada dhexdeeda. bilaal ayaa sheegay inaanay jirin weysaqaad uu weyse qaatay maalin iyo habeen ilaa inuu dukado intuu allah u qadaray, taasina ay tahay camalku uu uga rajada badan yahay. waxaa intaa u dheeraa bilaal bin rabaax inuu ahaa mu'adinkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo xilligaasi ka dhignaa sidoo kale wasiirka warfaafinta ee dowladda islaamka. cumar radiallahu canhu ayaa wuxuu dhihi jiray bilaal waa sayidkeena, waxaana xoreeyey abuubakar oo isagana sayidkeena ah. wuxuu ahaa qof tawaaduc badan oo isdhuldhigis badan, marka wanaagiisa iyo khayrkiisa la sheegana wuxuu dhihi jiray waxaan ahay un qof xabashi ah oo daraadna addoon ahaa. marka laga hadlayo jihaadka iyo halganka, wuxuu allah ku sharfay inuu ka mid noqdo mujaahidiintii ka soo hoos dagaalamay raayada rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo islaamkana dhidabada uga aasay dhulka jasiiratul carab. markii uu suubanaha sallallahu calayhi wasallam geeriyooday, khulafadii raashidiintana ay isaga kala dambeeyeen hogaaminta muslimiinta, wuxuu bilaal isagoo mujaahid aan culays badnayn ka soo hoos dagaalamay raayada tawxiidka islaamkana wuxuu ka gudbiyey xuduudda jasiiratul carab. wuxuu ka mid ahaa saxaabadii xaadiray furashadii baytulmaqdis iyo xureyntii masjidul aqsa shariif. ugu dambeyntii waxay geeridu ugu timid isagoo ku sugan dimishq sanadka markuu ahaa sanadkii 20aad ee hijriyada, wuxuuna ku geeriyooday 60 sano. allah ha ka raali noqdo. maalinkii geeridiisa saacadihii uu sakaraadka ah waxaa argagaxay xaaskiisa, laakiin isaga wuxuu tilmaamay inay u tahay maalinkan maalin farxadeed maadaama uu la kulmi doono nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabada ridwaanullaahi canhum. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم